عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم. هو جوجنا معناتها لابتوب حقه يقصارين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن بوبسينينا إن شاء الله شيق يا فضيو قبل واحد سودي بتين محسنين أيال ربا إن لو دعاء غير الله سيء ونقص صدر صدق تبرعات وحاول تاجنا هو تبرعات دني عن عاونيني ولا له إنه قبل صدر البضي قبل صدر صدق قبل عم حياة القص صدر صدق غير الله سيء جوج الجرمن جوج هولن ما شاء الله تبارك وعشرة وذن إن شاء الله بإذن الله كريم بريتولة dalbadeen cashadan oo bisil in looga bixiyo ma sha Allah tabaarak noo sheer gareey dhalinyarada iyo waxa jiro waxa ilo dhalinyaro Soomaaliya joogto khayr Allah siiyo jisaakumullahu khayr jisadiina janna inuu u duceeyaan barwaashiqa dhalinyaradaasna waxay ku soo darsadeen hal dollar aad ay u badan yihiin magacyadooda waan hayaa intay ku qoran yihiin magacyadooda rasiidkan ka arkay hal dollar ay ku soo tuureen wa alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh ma sha Allah tabaarak dhalinyaro Soomaaliya joogto tabarucaad la baxaya khayr Allah si jisaakumullahu qaar waxay soo direen 50b qaar waxay soo $50 ya 50b ma sha Allah 50 kale kabtay qaar waxay soo direen $1 dadkii dibadda jooga waxa ka fiicnaada bay dhalinyaradii xamar joogtay khayr Allah si dhalinyaradaas ay waa u duceeyeen wa alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh magacyadooda waan hayaa way ku jiraan rasiidka waan hayaa telefonka intaan ku save gareysto ayaan jiirada ka wacaya iyagana waa in ducada lagu daraa maadaama ay $1 50b soo baxsadeen sheekha iga fakanayo gabdhaha inuu duceeyaan rabaa gabdhaha ruux u soo baxsadeen uu soo duceey ma sha Allah dhootaan daaraya ayagana inkastoo aan jiirada ugu diray gabdho kale oo cusub wax soo baxsadeen oo beritool la siinayo sheekhu iga fakan rabaa mawduuc aadi rabaa taraawiix waa ka faa'iideysanaya biidnillahi kariim kii aan wax baxsan karin mar walbaan dhahaa sheerta noogu dhufta wax ma baxsan kartid ma inoo ahaa sadaqadaada sheerta waay sheerta saaro taada kale ma sha Allah tabaarak hal gabaro maanta waxa jirta idana $50 soo dhiibatay Shamsa Cabdikariin khayr Allah siiyo waxay tiri masaajidkii Buusley hal iigu daray tiri kutubyo waa u diray lacagta teleefankeyga ku soo shubtay ma sha Allah khayr Allah siiyo anigana waa sii diray xasana u sii diray ma sha Allah xasana waa u duubay jiradu iga haya inkastoo uusan joogin baadiyan jiray yiraantan masaajidkii ma joogin meel baadiyan jiray u dhahooya kulay wuu arkay asaan u soo duubay gabadha iyadana jiiradan ugu diraya insha Allah biidnillah aydan ajri xasanaad Allah ka siiyo miisaanka aakhir Allah u saaro sheekha marka soo qabana tabarucaadiin idinkana ha ahaato sheerta naftirkeeda sadaqa waaya ha yaraysanina macallin waa ku soo qabana soo qabso khayr Allah ku siiyo tii kale iga tagaa macallinkayga inaan ka faa'iideysto waay sheekh imaamka inaan ka faa'iideysto tii kale uu baxaa okay isig marka waa ku soo wacaya sheekha oo qabo insha Allah kulli reer live ma sheekha masaajidkay ku jiraan dhaxdiisay ku jiraan hadday afureen ay ما شاء الله وحير أفر أيام كجرنا maxaa dadka gabarna waxay igu tiri way afureene
هذا يعير أفر أيام كجرنا وحير وكادي وده حتى نقبل وحير ترساقل جاوا على أفري كسبوت أنت يسن آذنا يقدر تراوي حد وعيدويا وحير إيه كادي أفر أيام كجرنا because مساجد كيف فديان إمام كواي ومساجد كحمر يفديان خير الله سيه ما يبينا ما يفديان حمر ما هني قبل يقول سو حرير سأجر الله كسيه مركو عايدين سي دارا يا قبل كلو لو سو دعيا عايدين سي دارا انتو ما رتشيق كسي أفرايو وحير يسوي يرا أصله بلنتان يدقي خير الله سيه وعايدين دارا يا قبل لو سو دعيا أو ما أنت اللي بعيه بيج كي مسوي قلنا بيج كي جارسيه كجران مرك إن شاء الله مرة بالصودا ولا قرية وبيج كي قلنا سو قليه سعدية آسيا بحصدين وأشهد أن محمد خير الله سيه ورسوله أما بعد يا جيرة ذا أقدر أنتو أفرك سبحانه وتعالى أنا الشيقة إذن سي دارا إن شاء الله وسو دعي قبلها يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال تعالى لا خير في كثير من سبحانه وتعالى إنه بدل الخير خمسين مخلصين قبلها لو سو دعي سعدية آسيا الله سبحانه وتعالى مذيع قفك مسلم ما أنت اللي بعيه راشين عيرين وحيسيان بينه وكامل كيسيان غير الله سيو قبلها سيت ما شاء الله تبارك وتعالى بعيه بيج كي يقولوا مكيرين حتى أيام حيها تولي إذن دارا دقيستا سانا اللي وسو دعي دعاء أسكربنا عنك مويد دعاء ديداي وأنت قيامة إلهي وحو لي آيات معنى هذي إلهي سبحانه وتعالى قفك كما بقي إن وحي سوح لقدمه أما الله ظلميه وح الله لو واحد دحستت الله سبحانه وتعالى أكتي سيكويا لن إلهينا سبحانه وتعالى ما ضيعي ما شاء الله dadka muslimiinta ah oo sadaqada la baxay dadka walaalahooda ka farxiyay afuriyay dhibaatada la qaybsaday qalbigooda farxadda geliyay Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ugu rajaynaynaa wax badan ay ku farxaan inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyo dunya aakhirada amiin لأن نينك مسلم كأهوان وحتر له قفك دوسا وحتر يا وحخوض بالله قيمة ملا قفك مؤمن كأهو حال قد دونا يا إنه هذا قف وحتر له بالشدة أنفعية ومدى أنفعية ولا لها أنفعية مسلمين تضن أنفعية الله سبحانه وتعالى نكاسا أكتس قيمة كله المؤمن الغوي خيرا وأحب من الله من المؤمن الضعيف نينك مؤمن كخوي بإلهي حقي سلا يجعل يهي نينك مؤمن كضعيف ما شاء الله اليد العليا خير من يد السفلى أبو رسول كيري قعدت مد السريسة يا مد هو السيسنة مد السريسة يا قيمة بدن ولا الله ضمان واحد بحصدي الله سبحانه وتعالى وحن أقرأ جينينا إنه بدل خير خوسي نحن مقديو خاصة وحن هل كان أود عينينا ضمان نجي علماء تذكر الله أفريي ساكين تذكي علمي قبرناي لبدنا ولا لا خاصة عاسية يا سعدية ما شاء الله بارك الله فيكم بان لنا إلهي دين بركة آمين يا رب صدقنا الله بحد الإلهي ميزاكنا آخر إلهي هيدين كقوة آمين إلهي عذابدي يا إيش يا سحرك يا بلايا السعودة إلهي دين كحجاب ما شاء الله إلهي دين كنا حريصه أمني إلهي دين كسيو عافمات تامة إلهي دين سيو دواتوين كالسعودة إلهي دين كجيس مريو قدرات جرا دواتوين باجرا قبل باتيهين إلهي درتي سواح أبحثتينه إلهي ميزانكنا هيدن كوكا والدنيا آخرة آمين يا رب ما شاء الله الله سبحانه وتعالى ونقد بحثتين سعدية إيو عاسية ما شاء الله أدوى لو فرحي وحتى ند كد يشمضا الله سبحانه وتعالى درتي سواح أبحثنا إن لو ود إذا خيرك اللي فانا لو ترتمى دينتنا يا خبط ما شاء الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو بكر الصديق بعدين ترتمي مركي رسولك صدق فري عمر وحو كان حوله سبركيس مركز لو يدي إلهي رسولك وحو يدي عمره عيالكاجي أهلكاجي محاد أقصوتك وحو يدي أنت إن لم يتأه أنا أقصوتك أصدق ولي رجال إنه أبو بكر كسر مره أبو بكر نحوله وحو هيستيبو إلهي درتي سأبحيي مركز لو يدي أبو بكر وعيالكاجي محاد أقصوتك wuxuu ku jawaabay Allah wa rasuuli ilaahay rasuulkiisa naga soo tagay wax kale agama soo tagay ma sha Allah mar gabdhaha walaalahayna Saadiya Aasiya barakallahu fiikum
الله سبحانه وتعالى وحن كرجينا إنه إلهي عزية شرف إذن كنا ليه مجعنا إلهي كر أقاضه سيدا ما أنت مجعنا أحسن إلهي سمد إذن كحسه دنبجنا إلهي دافو ما شاء الله مرادكينا قاسك أيامتك عامك إله بأوي إلهي إذن سهل آمين يا رب دواتوي كي مرقد قلبينا كجرا إلهي إذن كبحيو آمين فرحة إلهي إذن كبدلو واحد همين إنسان إلهي سبحانه وتعالى إذن سيو عيال خير قوى زوج خير قوى والدينتنا دين نوليهن إلهي بارق وذا إذن كبدقى حتى إذن تانا إلهي سبحانه وتعالى واحد بحثتين إلهي صدقة الجارية قدقى إلهي ميزانك وذا أسرة آمين إلهي إذن كبدقى ولد صالحة ورسولك أماني ما شاء الله تبارك واكاس الناس waa loo soo duceeyay hadda marka waxaan sugnaaba waa shiiqi waayo dhalinyaro waxaa jirta Soomaaliya joogta khayr Allah siiyo oo markaan live-ka soo gala aan dhahay war $1 xataa 50b xataa hadaa soo dirtiin dhib ma laha wiilashaan gaarsiiyo oo hayaan cashada freshka oo maalintii ayaa la soo keen dardarayaa meeshaana lagu bixinayaa dhalinyaro badan oo magacooda aan soo koobi karin ayaa waxay ku soo tuureen $1 $1 ما شاء الله تبارك هذا أوقف فرحي والله هذا أوقف فرحي لأن يرضى سهل $1 كسوري ذين نقفة يسوي السلام عليكم لايف أنكو جرا معلم هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام لايف أنكو جرا مكو كسو عليك راه سفيان هاي لايف أنكو جرا مكو كسو نقا هاي أي سلام ما شاء الله تبارك maxay ahayd toolateeda kale dhalinyaradaasiyad waxaan aad ugu farxay maasha allah hadalkii aan dhahay yeeleen xamar ay joogaan Soomaaliya ay joogaan kii 50b ku soo ridi karo kii $1 ku soo ridi karo kii waxay noqdeen maasha allah tabaarak wallahi markaan arkay aad aan u farxay waayo aniga ayaan ku dhiiri gelinayo waayo sadaqada ma gashay yaraan sadaqa hadaa $1 dhiibtid iyo hadaa $10 dhiibtid iyo hadaa $100 dhiibtid sadaqa isku sadaqa waa ilaahay niyadaada wuu og yahay inaadan wax haysanin wuu og yahay say shiiqyada haystaan say shiiqyada sheegan inaad waxba haysanin oo shilin haysanin markay arkaan marka inaad waxba haysanin hadaa sadaqadii ku tabarracdid wax alla wixii adi awood ah u leedahay marka mashaakil ma jiro dhib ma jiro wax yar isuga asxaabay dhib ma jiro marka wiilashaasiyati aada ugu farxay waxay sameeyeen maasha allah tabaarak waxay soo direen hal $1 ay soo direen $1 magacyadooda iyo lambaradooda ii soo baxay jiirada u galaya insha Allah ayagana waxaan rabaa maanta in loo duceeyo sheekh inuu u duceeyo rabaa because way naga soo qayb galeen tabarucaadi soo marka waxaan rabaa sheekh inuu noogu duceeyo dhalinyaradaas halka $1 noo soo shubtay waxay la mid yihiin dadka $50 $100 $200 soo direen ayay la mid yihiin ayagana maasha Allah tabaarak waxay noogu jiraan qaybta oo waxay noogu jiraan maasha Allah oo aad ka maarta haygu ay ku jiraan waayo iyagoo xamar joogo oo maanta aanan awood u lahayn oo aanan shaqaynaynin ayay lacagtoodii noo soo gala gooyeen ayaana $1 noogu soo direen marka wax aad u fiican waayo walaalayaalow maasha allah tabaarak waxayna dhaheen intay jiirada ii soo galeen waana kuu sheer garayna $1 waa kuu soo dirnay dhaheen maasha allah wallahi waa arkay dhalinyaro Soomaaliya joogta intay isxil qaameen sheerna waa kuugu sameynay maamo $1 waa kuu soo tuurna markaan arkay kulli magacyadooda ku qoran maasha allah tabaarak ilaahay waxaa uga baryay ayagana sayniidooda jecesha allah yeelo hadda marka sheekha waxaan u rabaa oo aan u sugayaa maadaama xamar laga afurooyo hadda wuxuu yiri isdiyaari soo galo igu yiri intaas ka sii hadal ka bacdina ii soo qabo yiri hadda marka wuxuu ii soo qoray waa kana maasha allah afurkii ayaan ku jiray wax yar ii kaadiyo yiri okay hadda ii soo qoray wacalaykum asalaam okay diyaar waay haddaan ku soo wacaa marka waa kana sheekhi dhalinyaradii $1 soo dirsatay iyo gabdho joogaan Jarmanka iyo gabdho joogaan Holland ayaa loo duceynaya insha Allah khayr Allah siiyo uu duceynaya sheekha muhiim aniga because waqtiga asaga diyaar uu is diyaari ayaan jib ku soo dhahaa alxamdulillah because waqti ma dooran kari ani asigi uun baan maaragtay ku xiranahay markuu hadda soo galo dhow haddaan soo galaa hadduu soo galo dhow soo galaa marka asaa hadda isoo diray wuxuu yiri gal waqtigaan hadda xaadirka ah dhowt wuxuu aadaa taraawiix السلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله ما شاء الله تبارك dhalinyaro ما شاء الله gabdho oo ما شاء الله waxa jooga German iyo Holland ayaa maanta na soo gaarsiiyeen lacag ay ugu tala galeen sadaqadii iyo wiilal ما شاء الله joogan Soomaaliya $1 ku soo shubeen qeer Allah siiyeen ما شاء الله ina u duceysid aan rabaa iyagoo Soomaaliya jooga maanta waxba haysanin ayay waxay isku dayaan inay sadaqadii ka qayb galaan $1 ay soo direen wiilal aad u tiro badan
qaar hataa waxay soo direen 50 centi marka ducada u wad sheekhow insha allah jaarjig inaan keeno إن شاء الله تعالى ما شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. الحمد لله. أتقول الله مسلمين تأه سوي ميت كلن كان يا خيرات كان الحمد لله آت السيء ما الإله سبحانه وتعالى بأسكله إذا ذلك مسلمين تأه خير كجعل وآد نفس الدوضة صدقاتك أبي حنية الله سبحانه وتعالى وحن أقول جينا إنه إلهي برواخاء يا خيرات بدن أوسي. وعليكم السلام ورحمة الله. الله سبحانه وتعالى أسقى يا إن أوري وحا أنسى ميسرا إن إلهي سبحانه وتعالى أسقى يا نوافجني. صح. ninka ma samaysan karo ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala doonistiisa buu ku samaynaya marka aad baan ugu faraxsannahay walaalaha jarmal iyo meelaha kala jooga sadaqaadka baxsanaya kuwa soomaaliya iyagoo xaaladooda iska adag sadaqada baxsanaya allah subxaanahu wa tacaala baa ku ammaanay dadka muslimiinta aan waxba haysan haddana wax baxsanaya lianna rasuulka sala allahu calayhi wasalam dagaalkii tabuuka markuu sadaqada amray dad baa xoolo badan bixiyey dadna wax yar bay bixiyeen صح dad baa jira oo munaafiqiin ahaa oo arrintaasi labada dhinacba eed ka geystay markii dadkii wax badan bixinay waxay dhaheen oo ilaahay intaana qofka bixinay wixiisa waa status qaar kaloo haddana wax yar bixiyey bay haddana wax ka sheegeen waxay dhaheen dadkaan waxaa yar bixinaya aan qiimaha lahayn ilaahay muxuu ka doonaya laakiin allah subxaanahu wa tacaala wuu u soo jawaabay waladiina laa yajiduuna ilaa juhdahum kuwa tabartooda wax iyaga haysta keliya hela oo bixiya allah subxaanahu wa tacaala si gooni u ammaanay marka waa alxamdulilah qofka wuxuu haysto yaa ilaahay agtiisa qiimo ka leh diintan sideedaba haddaad wax weyn gashatidna wax weyn ma ah waxa adiga lagaa rabaa ka sii weyn haddii wax yar gashatidna waxeeda ma yara wax allaala waxaad geliso allah subxaanahu wa tacaala wuu ku laalaabaya maasha allah marka insha allahu tacaala dadka walaalaha khayrka jecel dadka dibadaha jooga ee dadka dalka joogaba oo khayrka baxsaday ee dadka khayrka abaabulaya allah subxaanahu wa tacaala waxaan u baryaynaa inuu ilaahay ceebtooda adduunya midda aakhira ba'aso inuu ilaahay dembigooda dhaafo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka aqbalo dadaalka iyo waxay wadaan allah subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa wuxuu yidhi khayrka sidiisaba khazaa'in buu ku jiraa khasraduu ku jiraa wuxuuna leeyahay furo lagu furo marka waxaa janno iyo iska lahaa ninkii khayrka furihiisa noqdo shartana xiro marka walaashayna oo khayrka u kacday khayrka furihiisa noqotay ummadadan isku xiraysa allah subxaanahu wa tacaala adigana waxaan kaaga baryaynaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala bedel khayr qabo maalin aad ugu baahi badan tahay adduunkan la joogin inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankaaga kugu kabo dadka walaalaha dibadaha joogana allah subxaanahu wa tacaala waxaan u weydiinaynaa kurbada haysa ilaah baa og inuu ilaahay kurbadooda ka qaado amiin ya rabbi in allah subxaanahu wa tacaala meelahay ka dhiban yihiin ilaahay ka asto in dhagarta gaalada u soo maleegaysa ciyaalkoodii loo soo wada la dhakrayo ciyaalka la rabo in laga bedesho ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu sadaqadan darteed difaac ilaahay aga dhigo amiin ya rabbi hadday sharci iyo arrimo kale ay u baahan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala u sahlo ayagoo diintoodii waxba gaarayn u fududeeyo maanta cisada iyo sharafta dadka soomaalida leeyihiin allah subxaanahu wa tacaala siya dibadaha markay joogaan adigoo waddan yimid oo qaxootiya laakiin ilaahay sharaf ku siiyey gaari ku socoto laga yaabo dad waddanka u dhashay inaad ka nolol fiican tahay waxyaabaha aan ku helayno wax kala ma waa sadaqaadkan aan baxsanayno waxaan iska warhayno gabadha keliya guriga u maqan oo ilaa iyo ehelka midka baadiyaha jira kan magaalada jooga hooyo maqan aabbo maqan ehel maqan ka fikiraysa allah subxaanahu wa tacaala taas buu noo soo sarifayaa ma aha aqli badan aan leenahay haddii aqoon la dhaho waa naga aqoon xifra haddii la dhaho waa naga badan yahay laakiin allah subxaanahu wa tacaala sidaa ay tahayna dadka soomaalida meel walba ay joogaan ilaahay cizu siiyo iyo sharaf iyo lacag iyo karaamo waxa aan ku helnay waa inaan u faahnaa inay tahay wax aan baxsanayn anfiq yunfiq calayhi buu rasuulkii sal alla alay la aadama wax bixi adigana waxaad bixiso bedelkooda lagu siinaya marka dadka arrimahaasi ka shaqaynaya bixinaya lacagtoodii qof kasta lacagta buu u baahay qof kasta nafsadiisuu ka goynaya cidna lacag kama badanayso cidna lacag iskama haysato laga yaabo ninka yurubta joogo inuu adiga wax badan asaga u baahay nafsadiisa ka celiyo oo soo aruuray haddana soo bixi marka nimanka ilaahay subxaanahu wa tacaala dayici maayo إن شاء الله تعالى جماعتي الدعاء يهيسا
annagana waan u ducaynaynaa salaatuleelkana waan ugu soo ducaynaynaa insha allahu tacaala inuu ilaahay wax badan ugu furfuro dhibaatooyin badan baa iska jira qof baa ciyaalka ka xanuunsan caafimaad ilaahay ku siiyo qof baa xaaska ka xanuunsan ilaahay xaaska u caafiyo qof baa niman ka xanuunsan nimankooda ilaahay u caafiyo nin baa ciyaalka karila ilaahay ciyaalkiisa baari aga dhigo ciyaal diinta u shaqeeya indhihiisa ku qabowstaan ilaahay aga dhigo ehelka dadka ilaahay isu keeno allah subxaanahu watacaala kurbada haysata dhammaan allah subxaanahu watacaala aga qaado nin allaala ninkii khayrkan wax ku darsan allah subxaanahu watacaala ina allaha laa yudiicu ajra man axsana camala ilaahay marnaba dayici maayo qofka wanaaga sameeya ajarkiisa iyo wanaagiisa ilaahay ma dayacayo marka insha allahu tacaala dadaalka ha la sii wado khayral umuuri khawaatimuha maalmo yaraaba dhimanba maantii soonkii shalay ahaa maanta waxaa ka haray maalmo yar baa ka harayba ayaaman macduudaad markale ilaahay noo sheegay maalmo yar baa noo haray insha allahu tacaala dadaalka dadaal ha lagu daro nin kasta allah subxaanahu watacaala wax baxsado ilaahay ma iloobayo mana ka xaqirayo ilaahay adduunkana bedelkiisuu siin aakhirana allah subxaanahu watacaala maalin qofka uu dhibaataysan yahay baa wixiisa arkaya maalintaasuu qofka shalayni yaa maxaa wax badan usoo baxsan waayey maxaa intaan bixinayay wax badan u bixin waayey ilan waxyaabaha inaad bixiso waxay u baahan tahay geesinimo waay shaydaan baa meesha kuu jooga ashaytaanu yacidukum alfaqr wuxuu ku amrayaa faqiirtinimo waxaaga iska hayso oo waxyaabo kale inuu kaaga sheekeeya laga yaabaa war xaggaa ku habboonaya xagga ku bixi oo waxaagii hayso oo arrintan iska daa balse waxaa la doonaya waxay tahay ninka muslimka ah inuu u arko wax kasta uu sameynaya ilaahay dartiista u sameeyo qisa nin saxaabi ah ku dhacday baa nin u soo martiyaaliid marti uu iska dhigay ninkaas lacagna wuu u wadaa ninkaan nin asaga baarayuu ahaa markaa 3 beriyo gurigiisa joogaa cumar radiallahu canhu baa u soo diray ninkaas inuu xaaladiisa ka war keeno nin wasiir buu ahaa shaqada iska casilay gurigiisa baadiye iska jooga nin baa laga soo daba tiray ninkaas xaaladiisa eeg hadduu dhaqaale haystana ii soo sheeg hadduu dhaqaale haysaninna waxaa lihi lacagtaad haysa 1 dirham oo xilligaas aad u qaali ah sii ninkii 3 beriyo gurigiisa marti ahaan loo joogaa markaasa quraac gurigiisa lagama cuno qadar lagama cuno habeenkii keliya asii xaasid xabad muufa cunayeen unbuu ninkii martida ahaa siin wax kala ma 3 haweenoo gaajo ku seexdaan maalinka nin dariskiisa u yimid war wuxuu yidhi ninkaan 3 beri cunta ma uusan cunin haddii adiga meel kale aadan u soconin oo marti tahay gurigayga imaw anaa xoogaa ka ro markaasuu lacagtii u sheegay war aniga cumar baa isoo diray radiallahu canhu inaan xaaladaada 1 dirham qaado waa lacag wax weliba ugu filan marka hello connectionki sheekha connectionki ku dhig masaajidkay joogaan connectionka ku dhig kulli asaas hagaajina masaajidkay joogaan maasha allah haa waa lagu xoogaa codkaaga marka waxaa la yidhi ninkii codkiiga kola ay soo galay insha allah marka ninka 3 bari buu ilaahay dartiisa u qadayo qof siinay marka annaga maanta allah subhanahu wa ta'ala barwaaquna siiyay waxa ilaahay nasiidaan wax ka baxsan ilaahay badal khayr qabo nasiinaya dhammaan dadka afuraya dacwadoodu waa mustajaab xilliga afurta dadka loo soo duceynaya allah subhanahu wa ta'ala ma dayacayo laakiin ducada waxay wax ku qabani qofka loo duceynayo iyo qofka wax baxsan inay kalsooni ilaahay ku jirto wuxuu u baahan yahay niyadiisa ku qabto ilaahay lacagtan bixinayo muraadkii meeshan ahaa ayaan u niyeystay inuu ilaahay ciyaalka iigu hagaajiyo inuu ilaahay xaas ii bixiyo inuu ilaahay nin ii bixiyo inuu ilaahay ciyaal baari ah isiiyo inuu diinta ii fududeeyo u niyeysto qalbigiisana ku qabto uuna yaqiiniyo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka aqbalayo insha allahu tacaala ilaahay wuu aqbalayaa marka walaalayaal dadaalka la sii wado dadka muslimiinta walaalihiina baa ku farxaya allah subxaanahu wa tacaala qof aadan garanayn ilaahay dartiisa wax u siinayso aadan lahayn berita abaal ha kuu gudo aadan arkin aqoon u lahayn ilaahay dartiisa u bixiso waa sadaqada oo aad ilaahay u jecel yahay oo istus aan noqon karin maasha allah waxa ilaahay agtiisa wax ku goynayana waa waxa ilaahay ikhlaaska loo bixiyo leena qofkaad wax siinayso qof baad taqaanida u faanaysid mise qabiil ahaan u siinaysid ma aha waa nin ilaahay dartiisa wax u siinayso allah subxaanahu wa tacaala wuu u laablaabayaa nin kastoo muslim ah arrintan wax ka geystana allah subxaanahu wa tacaala dayici maayo marka dhammaanteena aan ku dadaalno khayrka aad buu u culus yahay in marka mar waliba dadaalka la sameeyo lagu dadaalo insha allahu tacaala ilaahayna dayici maayo bedel khayr qabana wuuna siinayaa soonkiina isagaaba 10kii raxmada oo waxaa lagu jira makfirada dambi dhaafka ahayd waxa noo haraaba wax yar iska insha allahu tacaala dadaalka aan sii wadno jazaakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekh jazaakum allahu khayr maasha allah tabaaraka waa mahadsan tahay markaan waa fasaxan tahay biidni illaahi kariim haye
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي الشيخ أصحابي واكاسا ما شاء الله شيخ وبحاي وأسعد التراويح marka wuxuu yiri haddaan fasax leeyahay hadda soo gal marka ani important waxa ay sheekha way dada wax baxsadeen dadkaas aan rabaa inaan u duceeyo ayagana oo ugu duceeyo sheekha khayr Allah siiye oo ayagana gadaal ay ka fiirsan doonaan because waqtiga ugu fiican waa waqtiga markay dadka dhan afuraan waa hadda saacadahan oo kale dada afur suubsanayo ani hadda afur inaan suubiyo waayo qaar afur ay u taagan gabdhaha loo duceeyay afur ay u taagan laakiin sheekhiya waqtiga ciriiri wuxuu ku leeyahay hadhow aniga taraawiixan aada taraawiix markaan ka soo noqdan waa iska daaran uu yiri marka waqtiga uu idho soo gal uun baan soo galaa asagaan ku xiranahay maadaama gabdhaheennii sharafta leh iyo wiilasheenii sharafta lahaayoo Soomaaliya jooga xamar jooga soo tuureen hal dollar hadday joogi lahaayeen gobolada Baydhabo hadday joogi lahaayeen xamar hadday joogi lahaayeen meel kasta gobolada meel kasta wallahi waa ka arkay taleefanadoodan ka arkay $1 50b ay soo tuureen maasha Allah waa la isku geeyna iyagana hal meel inta la isugu geeyay halkaas dollar iyo 50b gaas ayaa iyagana cashada oo freshka oo laga bixinayo team gaarsiye ay bixinayaano kaamamka ay geynayaan ayay siinayaan biidnillahi kariim maanta gabdhihii baxsaday Sacdiye iyo beejkay kuma jira laakiin beejka gaarsiye ku jira inta idinka tusinaya insha Allah biidnillahi kariim waaye mar walba in la soo dajiyo waaye aan wax ma soo gelin kari beejkay waxba ma soo gelin kari wiilasha soo geliyaan taleefankan haysta ani taleefankan waa iga yara halaabay waxba ma ku soo dajin kari wiilasha soo geliyaan wixii ayaga xaq ka soo duubaan iyo wixii la soo boosta gareenayo marka hadda inuu hadhow soo gelinaya dhici karto maaxiye khayr Allah siiyo asaa ku qoran asaa soo gelinaya gabdhahaas bixitaankii la bixiyay cashadoodii oo afurkoodii ay baxsadeen laakiin gaarsiyo ku jira hadda oo ah beejka oo team gaarsiye kaasa idin geynaya waan idinka tusinaya siday maaragtay ay loogu bixiyay 15 qofood maya 10 qoys ayay siiyeen labadaas gabdhood khayr Allah siiyo raashin ceerina 10 qoys maanta ay soo bixiyeen waa kana ani wali beejkayga ma la soo gelin waa kaas fiirsada ما شاء الله تلفونك شارج ماله ساسا إذن كوكو قبنا واكس وأجدينا أمالينا إبل هوستن كلين جري ملا أركي جري واكس تين قويسي سيان لكن بيجك يكون جري بيجك وكجرا ما دام اللايف سو قالين أنا بيجك وين كسو شير جريس ليس بايكراني لكن بيجك كان وعمكو بوست جرين كرينا يدان يرضى ورياش إنه كسو بوست جريان سبيشال ماحية أو كقرن بيجك إنه ماركت كسو بوست جريا واكس ولو بحي سعدي آسيو raashin ceeriin ay soo dalbadeen afur ceeriina masaakiinta inta dhiman in la siiyo waa kaas xoogaa ayaan sikinaa sug markii dadka la siinaayo aan sikinaa waa kaas way bixiyeen ujeedido jaarjiga ku yarkan because ani diyaar ma ahayn waxaan isdhahay bacdal afra soo galay laakiin wuxuu igu yiri soo soco igu yiri shiiqa soo gal haddaan diyaar ahay waa ku soo boodo marka markoosiin waa kaas mujeediin waa loo jeedaa ma ayagoo bixinayaan waa kaas beejkayga hadhow soo gelinaa gabdhihii soo dhiibtay lacagta waxay soo dhiibteen khamiistii ay soo dhiibteen lacagta maasha Allah laakiin jimcihii waxay bixinayeen afurkii oo hal wiil iyo dhalinyaro kale oo iyagana wadankan Yurub joogaan ayaa waxay soo dhiibteen gaarsiye inay casho ka bixiyaan kaamka shala marka cashadaas ay bixinayeen maasha Allah tabaarak gaarsiye hol fiican ay hayaan shala cashadii wiilasha ay bixinayeen wuu ku jira cashadii wiilasha xataa beejkaygu laakiin ku jira dada arkay dadna ma arkin shala marka cashadaas ay bixinayeen maadaama kiyu la galay gabdhiyan waxaa iri jimcay rabeen in loo bixiyo maanta loo bixiyo waxaa iri sabtiga la idin bixinaa jimco ma noqonayso because jimco dad kale oo lacag soo dirsadeen waa kaasa neefkaasa la qalay maasha Allah tabaarak neefkaasa loo qalay dadkii kale oo soo baxsaday dadaa soo baxsaday oo jooga Yurubtaan iyo mujada neefkaasa loo qalay casha loo bixiyay kaamka la geeyay maalin hal neefa loo qalaa maasha Allah tabaarak ma la ogola neefka markuu saayayna ma la ogola TV-ga ma la ogola ma ogtahay in la daboolo waayo markii neefka dhiig ka socdo waa lagu ganaaxa hadii kale asaga hadda waa u daboolaya markoosiina waa kaasa shalay cashadaas ay bixinayeen gabdhii waxaan dhahay sorry I'm very sorry idinka raashinkiina waxaa la bixinaa ceeriinka ah sabtiga marka maanta waxay noqotay inay bixiyaan team gaarsiye khayr Allah siiyo oo hawshaas adag ka hayaan waayo ayagana voluntary ay ku shaqeeyaan waa kaas gabdhii wiil la isugu jiraan ilaahay ha noo dhowr Allah noo sharf waa kaas gabdhii wiil la isugu jiraan gabadhan hadda magaceeda ma aqaan laakiin waxaan aad u aqaanaa raxma in la dhahaan jeclahay gabar kale aad u shaqeynaysa ayaantan uma jeedi gabadhaana soo bedeshay ma arkooyi raxiima miyaa raxma miyaa ma ogi la dhahaa maasha Allah khayr Allah sii gabadhaas idin aad ay u dadaashay waa kana cashadaadan shalay cashadaanay bixinayeen team gaarsiye cashadaasay shalay bixiyeen marka gabdhii waxaa iri shalay jimcihii rabeen waxaa iri team gaarsiye cashadii ay bixinooyaan neefaa la qalay dadaa soo dirsaday aa waa ka xumahay maanta la bixinayaa iri marka maanta waxay noqotay raashinkoodii ceeriinka ahaa
maantaa la dhiibay gabdhahaaseti kheyr allah siiyo ayagana maaragtay aad iyo aad aa loogu duceeyey waa ka shiiqa wuu u duceeyey xataa cajal yaruu ugu soo duceeyey jiiradan ugu diray cajal yaruu ugu soo duceeyey jiiradan ugu diray wallaahi maasha allah tabaarak marka waa kaasaa hadda waa loo wada duceeyey gabadheeni shamsi iyadana waxay soo baxsatay kutubay soo baxsatay oo masaajidkii busley ay kusoo darsatay $50 ay soo dhiibatay saaka waa u tuuray xasan macalinaa u tuuray iimana soo jawaabin waa helana ima dhihin ma helina ma dhihin laakiin rasiidka u hayaa waayo wixii aan dhinaciisa iga soo gaaro waa u tuuraa saaka waa u tuuray shamsaa soo dirtay shamsi cabdikariin oo soo dirtay $50 oo ay u rabtay kutub inta kalena afurkaanay u rabtay oo lagu darsanayo oo beri loo bixinayo oo loo soo duubay gabdho kale oo jarmanka iyo joogaan holand dhehen cashada oo afurkaan rabnaa iyagana shiiqa hadda waaba u duceeyaba shiiqan waa shiiqa noo taagan oo markay tiim gaarsiiya cashada bixiyaan duceeyo waay maasha allah marka shamsana maanta waa ugu darnay bulis waxaa laga sii rabaa shamso masaajidka busley $50 ee u dhiibtay masaajidka inuu bulis asagana usoo duceeyaa la rabaa maadaama gabadhaas waagii aan aruurinayay ay tiri aniga bisha markay 20 gaartaan jeclahay inaan bixiyo ballantii ay qaado waaye maantay kasoo baxday 50 kira xasan ayaan ku wareejiyey maanta duhuradii ayaan ku wareejiyey codna waa u duubay anoo dhahay xasano waa kuu soo diray 50kii shamso waxayna u rabtaa kutub ay u rabtaa waa kana codkiina waa u diray wuu arkay laakiin iima soo jawaabin kolley wuu helayaa u malaynaa kadibna waxaa looga baahan yahay xasan macalin waxaa looga baahan yahay inuu gabadhaas shamsa uu usoo duceeyo uu ugu soo duceeyo masaajidka maadaamay kutubtaasi ula baxday awlaadeeda iyo maaragtay muraadada ay iyada leedahay wadaadkeenan haddana maasha allah gabdhihii jarmanka ah iyo gabdhihii holan cashadoodii ayuu u duceeyey oo afurka beri bixinooyaan oo bulisna hadda uu iisoo duubaayo cod kaloo gooniho ayaga loogu duceynayo oon jiirada ugu diraayo intana wuu ugu duceeyey iyo wiilasheenii ay loobabe wiilasheenii soomaaliya joogay dhallinyarada ahaa aanan awood u lahayn in ayaga wax la siiyo maahane inay wax bixiyaan ayagana maasha allah tabaarak waxay soo direen hal $1 50 pence ay soo direen $1 nuskiisa ay soo direen maasha allah tabaarak ayagoo dhahay waxaan rabnaa tiim gaarsiiye inay cashadii bixiyaan haddana waa soo diraynaa raashin ceeriinaan rabnaa inaan 5 qoys camal aan siino wax fiican waay wala group dhalinyaro waay oo intay isku imaadeen soo fikireen ay nin walba telefonkiisa $1 intay kasoo gooyeen ay telefonkeeya kusoo shubeen maasha allah lambarkana waa ku arkay lambaradoodana waa ku yaala way is ogyihiin kolley hadday fiirsadaan waa lidinka guddoomay shiiqina wuu idiin duceeyey meeshana kasii wada wax fiicanaa samaynaysiin markay lacagtii isku soo aruurto qaaraa dhimanay dheheen tiim gaarsiiyaan u dirayaa maalinta qadada ayaa la idiin bixinayaa gooni idinkeena idiin noqonaysa waa dhalinyaradii $1 la dhahaa waa dhalinyaradii $1 oo soomaaliya joogtay lacagtiina gooniya u hayaa meel kalema lagu daraayo waxaan rabaa markay badato ay noqoto wax xoog badanoo ilaan shilin ku dar masaar waaye markay kuusato ayaan rabaa in casho la idinkugu bixiyo maadaama hadda aad macnaha xoogaa aad tihiin xoogaa weli because cashada oo kaamka 100 iyo waxay ku bixaysaa 20 markay yihiin kaamka markuu badan yahay uu weyn yahay laakiin kaamka markuu yar yahay $50 camal ay ku bixaysaa maasha allah ilaa hadda 50 ma buuxinin $1 ay soo direen kaydkayga telefonka ugu hayaa markay soo badiyaan dhalinyaradaas maalintaas cashada waa loo bixinaa waxaa la dhahaa waa wiilashii xamar joogay gobolada joogay oo $1 iyo $50 ka soo dirsadeen maasha allah tabaarak hadda shiiqa muxuu yiri kuma xirnuu yiri sadaqo weynaan iyo yaraan maasha allah tabaarak wallahi wax fiican waay wuxuu yiri sadaqo kuma xirno because awoodooda intaas waay waa dad la biilo waay dhalinyaro la biilo waay dhalinyaro aan shaqaynin waay dhalinyaro iyaga naftirkooda waalidiintooda gacantooda wax ka sugay waay laakiin waxay jeclaysteen in ay kala soo qayb galaan qaar way soo waceen qaar waxay ii dhaafeen fariin ay leeyihiin maama anaga awood uma lihin $1 waxaan ka ahayn ii share garays maasha allah because waa dhaha ani qaar waxaa jira intay soo waceen dheheen maama $1 xataa anaga ma haysano anaga managa badno laakiin waa kuu share garaynayna share gareeyaan dhahay meel dheer gaarsiiyaan dhahay maasha allah way ila shaqeeyaan kheyr allah siiyo cajaladayga xataa gadaalay ka fiirsadaan mar alla markay arkaan sheerta ha noo dhahaan qof oo maadaama iiga baxsan karin qof baxsan karo ayuu ku dhacayaa sheerka marka sidaas ilaa adligeeda waqtigan hadda aan soo galayno wallahi is not timeka ma iska okay laakiin aniga shiiqaan ku xiranahay maadaama u duceynayo dhalinyarada soomaaliya joogto oo maxay ahayd tol magacyadoodan inta aan ku hay ayagaan fasax ka qaadanaya hadday dhahaan noo soo yeeri magacyada $1 dhalinyarada soo dirsatay magacooda waa kana rasiidka waa wada haaya waa soo yeerinaya dabcan teleefanadooda aan haya hadday dhahaanna maya sadaqaan u rabnaa waa la isku qabanayaa ayadoo kooban oo culus waa la dirayaa maasha allah tabaarak cashada waxaa loogu bixinayaa baydhabo dadkaas masaakiinta hooyooyinka diseebelada hindhoolayaasha aanan awood u lahayn inay afuraan
maanta gabdhaha aad ugu faa'iidaysteen gabdho kalena hadda kadib ay isoo waceen hadda intaanan soo galnay isoo waceen ayagana waxay dhaheen maalinta isniinta annagaa qabsanayna meesha waxaana loo geynayaa oo diseebalada meesha waxaana loo geynayaa hindhoolayaasha ayaana loo geynayaa laakiin beritoole waxaan bixinaynaa gabdho kasoo dirsadeen jarmanka oo hadda loo duceeyey iyo gabdho holand kasoo dirsadeen ayaa maxay ahayd toole maasha allah beritoole hawshooda la galayaa oo haddana shiiqi u duceeyey berina markay sadaqadaas bixiyaan loo sii duceynaya iyagana ilaahay muraadkooda ha u sahlo shiiqani wuu u duceeyey bulis markay sadaqada bixiyaanna duco aad u weynay helayaan marka walaalayaalow noo sii sheergaray qof wax soo qoray muxuu yiri walaal muxuu dhahay idinkaan idin muxuu dhahay subscribe muu dhowaya subscribe maan kuu naqaanaay kolley iiga kuu saaray subscribe wiil waaye wuxuu dhowaya subscribe hala ii saaro u dhowaya kolley beejka inta ku jirto haddaa inta uu wiilkaas walaal maa u qoran walaal muxaram maa u qoran waxaa u qoran walaal muxtarim aa u qoran beejuu wadaa beej qur'aan inuu yahaan jeclahay hadduusan beej munkar ahayn waa loo sheer garayn karaa waana loo subscribeyn karaa hadduusan beej munkar ahayn beej hees iyo beej maxay ahayd toole munkar hadduusan ahayn uu yahay beej wax lagu baranayo qur'aan beej maxay ahayd toole dadka websiteka qur'aan ku baraysid hadduu yahay aniga hadhow waa fiirinaya waa lagu sheer garaynaya waana lagu subscribeyna laakiin beejka hadduu munkar yahay xaaraam waaye ama hadduu hees yahay inaa subscribe lagu sameeyo maadaama meeshaan anaga facal kheyr aan ku hayno walaal muxtarim aa u qoran haa walaal muxtarimow hadduu beejkaaga yahay beej waxbarasho uu yahay beej qur'aan hadduu yahay beejka lagu baraayo ilmaha qur'aanka websaadyada hadday yihiin aniga xataa subscribean kuu saaraa likean kuu saaraa waa kusoo follow garaynaya laakiin beejka hadduu yahay beej hees iyo beej munkar xoogaa waxa waaye mana lo fiicno waayo munkarka iyo heesta iyo mana loo ogolo inaan reebno waaye biidni illahi kariim laakiin hadduu yahay beejka beej oo kheyr anigaaba kow kuu bilaabay anaa hadda kusoo dabagalaayo anaa subscribe-na kuu saaraayo suulna waa kuu saaraa like-na waa kugu dhejinaa love-na waa kuu saaraa hadduu yahay beejka beej waxbarasho diineed hadduu yahay aniga kow kuu bilaabay wacalaykum assalam raxmatullahi wabarakaatu laakiin beejka hadduu yahay beej munkar iyo heeso animu ku jirin waayo facal kheyraan wadnaa marka dhallinyaradii soomaaliya joogeen maasha allah tabaarak waxaan rabaa inaad maasha allah cabdiqadar maasha allah tabaarak adima iskale beejka beej hadduu yahay beej khayraad anaa kuu bilaabay waadaan kusoo dabagelaa laygaan kuu saaraa suulaan kuu saaraa loofaan kuu saaraa dhallinyarada dhanna waxaan dhahaa u saara jiirooyinkan waa ku diraynaa biidni illahi karim si aan kor ugu kacdi hadduu yahay beej maasha allah oo ahlu qur'aan oo ahlu diin oo tafsiiro uu leeyaho muxaadaro aan ka faa'iidaysanayn ani xataa waa soo sheer garaynaya cabdiqadar haddaa adi tahay beejka qofka iskale marka dhallinyaradii soomaaliya jooga kheyr allah idin siiyo sheer gareeya kuwii aan baxsan karin ha sheer gareeya kuwii kalena wayba soo bixiyaan baanbaankooda dollar baanaan dhahaa ani UK aan joogaa mogtahay halka dollar hal baan camalaan iska dhahaa laakiin baankeenaa badan dollarkaa yar maasha allah annaga baankeenaa kastoo kacsana UK marka halkii dollar baan leen dhawaya ani mar waxaan dhahaa toban dollar inaan dhahaan rabaa 10 baanaan dhahaa marka waa dollar hal dollar ay soo dirsadeen hal dollar iyo 50 cent oo ah halfka ay soo dirsadeen marka insha allah baraarujin waaye maasha allah tabaarak waxaa laga yaabaa next time inay $1 iyo bar kasoo dhigaan ama $2 kasoo dhigaan sadaqadoodii waa la idinka qabaa shiiqana wuu idiin duceeyey waana arki doontiin inta ii soo dirtay halka dollar way is og yihiin magacoodii waan haayaa hadday dhahaan magaceenna soo sheeg waa sheegayaa hadday dhahaanna micno ma laha mashaakil ma leh sadaqadooda waa u jirtaa waana loo duceeyey markii lasii bixiyana markay isku soo aruurta halkaas dollarna cashadaa loogu bixinaya biidnillah waana loo soo duceynayaa maasha allah tabaarak marka beejkan beejka kheyrkeenna waaye aniga waxa waaye ma iska soo galo shiiqa waxay ugu yiri maaragtay waqtigu available hadda waan baxayo yiri taraawiixan aadaa inkastoo hadda iyo wixii ka dambeeyo ay masaajidka soo fadhiisteen aadaa u faraxsanay ebel waxa way carari jireen hadda laakiin waxay masaajidkay dhex fadhiyaan shiiqi hadda soo hadlaya imaamka masaajidka waaye maasha allah tabaarak masaajidkii uu dhex fadhiyaa ebel waxa waaye dadkii uu dujinayay uu isa sii diyaarina uu iga carari jiray laakiin hadda wuxuu dhahay maadaama oo soonkii oo dhexdhexaadkii maraayo masaajidkan wada fadhinaa laakiin saacadan wixii ka dambayso ima heli karto saacadahan camal ha ii soo gasho marka dhib ma laha noo sheer gareeya maadaama dadka qaarkood ani xataa afar suubisaan galaa haddaan galaa kheyrka aan isku wacno kheyrka aan ku dadaalno waxaa jirtoo kale maasha allah sidii masaajidkii aan u dhisay hadda masaajid kalaa la iisoo diray saaki maasha allah ma aqaano masaajidkan hadda kahor xasan macalin aan ku arkay jiiradaa la iisoo dhiga laakiin masaajidaa ka horeeyo
masaajid lama yeeri waaye kuleelaana dilay hana la soo caawiyo ay dhaheen laakiin masaajid oo waxaa aan ballan ka qaaday oo ka horeeyo ku yaala daafeed midaa jiro hargeysa ku yaala laakiin wiilkii waaba kala dhunnaba I don't know lambarkii waxaan bedela aan kasoo geli jiray lambarkaanaan samaystay maadaama oo qarashka kusoo dhacaayo aan soo degsaday sida maaragtay lacagaha dhalinyarada oo hawsha hayaan aan inta oga diro lambarkayga markuu kusoo dhaco anoo inta joogo ayaan app soo degsaday intaan ka xukumooyaa marka lacagta qofkii soo diro waa arkaa ani magaciisa lambarkiisaan arkaa intaan ka xukumooyaa kadibna markii wax la bixinaayo dhalinyaradan u dira aan u tuuraa bakhaarkan u tuuraa way adeegaan way qaadaan way geeyaan maasha allah tabaarak wax fiican waa iyadana horumar la gaaro waay daa'is waayaan lambarkii hore oo 307 iigu dambeeyey aan iskiiga bedelay oo waxaan ku bedelay lambarkaanaan ku bedeshtay oo madaxweyne mukhtaar rowe ku sawirnay waa bedelay kanaan hool ku hayaa kanaan hool iigu socoto kaas insha allah markii sadaqada kan waaye kan sadaqada waaye kaasna wuxuu ahaa kii siyaasadii aan kasoo geli jiro ahaa marka inkastoo markaa masaajidka hoshiisa hay aan ku waday laakiin taleefonka markaas diyaar iyo ma ahan kanaan furtay marka kanna waxa waaye howlaan ku hayaa hadda anoo saan ugu jiro kale qofka markuu lacag soo rido dhiliq uu iisoo dhaca waa arkaa marka wixii aan rabay inaan la socdo maasha allah tabaarak ayadana waxa waaye ilaahay xamdigiisa waaye xamdi aan gaarno waaye marka waxaa jirta gabdhayaan dhihine wadaadda iisoo direen hadda idin tusinaa masaajid dhahayo masaajidka aad u kulul yahay na soo caawi masaajidkan nala dhis masaajidka waa lama yeeri masaajidkaas laakiin hadda kahor waxaan ku arkay say ila tahay aniga xasanaan ku arkay xasanaa soo sheergaray masaajidkan lama yeeri iguma cusbo masaajidkan waaye waxaan u malaynaa maasha allah xasanaan ku arkay xasan macallin kheyr allah siiya masaajidkaas asagoo tagay oo soo duubay oo dhahayo masaajidkaana dhisooga u baahan yahay marka waa ila soo xiriireen imaamkii masaajidka ila soo xiriiray wuxuu igu yiri waxaan u baahannahay inaad na soo caawisid waa kana laakiin masaajidaa ka horeeyo ayagana waa u istaagaa biidni illah laakiin masaajidaa ka horeeyo safkaa lagu jiraa mujeedaa waa kaas masaajidkaas waaye kolley xasanaa u malaynaa asxaabtii xasan waaye xasan macallin jiiraday iisoo galeen way iisoo direen waxay dhahen masaajidku waa kulul yahay maqlosiin waa isla masaajidkan waaye oo macnaha hadal badan ay dhahayaan laakiin ani hadda waxa waaye mataqaanaa wax walba waxaan jeclahay aniga order inaan u qabto oo ah wixii haddaan iska daba keeno hadda waxaan u taaganahay afurtiyaa u taaganahay wixii ma iska daba keeni karno dadkii waa wareerayaan hadda dadkiiyaa waxay cunaan la afuraan u taaganahay inaan dadkii afurino afurka dadka markii oo programkaas afurka ah ii dhammaado masaajidka ugu horeeya oo ah daafeed oo ku yaalo tuulada tawaarey masjidul qudus aa la dhahaa maasha allah masjidul qudus ayaan rabaa inaan ku caawiyo imaamyada ila soo xiriireen dheen masjidkan dhulkuu yaallaa isagana waa inaad na soo garab qabataa ayaan u istaagaa waxba naguma qaadanayaan iskaashata ma kuftaan nahay waan dhisaynaa waxna naguma qaadanayo waxaa laga yaabaa xataa inuusan bilo nagu qaadanaynin haddaan intaan isgacan qabsano inta kheyrka jecel oon isku imaano oo aan ku wada goobano oo markaan taagnana darintiisii bahashiisii dhulkiisii la fidiyo kadibna kutubyadana markay kutubyo noqoto aniga waa ka boodaa masaajidka kala aadaa because kutubyada dhib male qof walba og masaajidkaas in la dhisay ayagaa soo dirsanay kadibna masaajidkaana haddana soo boosta garaynaa waxaan rabaa marka ani wixii order inaa u qabto ma isku dari kari hadda afuraan u taaganahay kaamankiyaa dhibaataysan waxay ku afuraan male hooyooyin hindhala aabooyin hindhala diseebillo kaamka ku jiro oon soo adeegan karin dadkay u taagan yihiin tiim gaarsiiya kuwaas waay kaar ma haystaan kaaman waxaa jira markasta waa sheegaa kaarar wax ku cunaan oo $100 ugu jirto kuwaan cidna uma maqno ceelna uma qodno maalin ilaahay keeno wallaahi iyagii ciyaalka safay galaan dhulkay fadhiistaan waayo ma haystaan wax kale oo ay sugayaan oo aan tiim gaarsiiye ka ahayn ma jirto iyo anigoo wixii aan usoo aruurin kara xitaa tiim gaarsiiye kheyr allah siiye ayaantaan xoogaa shaqooyinay ku jiraan oo iskooda oo brevetka maahane life ay soo geli jireen especially tiim gaarsiiye guddoomiyihiisa agaasimihiisa guddoomiyihiisa aan dhehe life uu soo gelaya laakiin xoogaa ayaantaan shaqadii aa ku balatay way ka cuslaatay asaa ay caawin jiray mamar asaa dhinac ka aruurin jiray ayaantaan ma soo galo ani keligay waay marka waxaan isku taxluujinaynaa weliba xitaa wallahi beejkayga waxaa ku jiro reer beled weynaa ku jiro horta kaamkii dhan waxmaba u qaban kariye laakiin hooyo lasoo duubay cunug yar haysato iyo oday gabaraa iga ballan qaaday idan isuga i dhowaysaa ayagana waa ku ceebaysanaa kaam waxaa jiro puntland wallahi maalin kasta isoo wacan waxay dhaheen maama maxaa kugu dhacay adi wax maa noo soo dirtid aniga dadkii aan u dhex galaa ani ebel waa shaqayn jiray markaan shaqayn jiray xasan hadda markaa aan la bilaabayay waa mar anoo xanuunsan waaye
oo wixii ani aan shaqeeyo oo shaqadii wixii iisoo dhacay ayaa masaajidkiina ku darsaday oo xoogaa aan xasanna aan intaan garab istaagan ku kabay laakiin hadda waxa waye ani ma shaqeeyey gurigaan fadhiyaa so waxa dadka leen u dhex galaa wixii dadka aan kasoo qaadale dadka siiyaa laakiin ebel waxa waa shaqaysan jiray dadka haddaysan soo dirin xataa anigaa jecel inaan sadaqada bixiyo anaa kabi jiray anaa saari jiray beledweyne oo kale kaamamka anaa diri jiray maxaa garow oo kale anaa saari jiray hadda waxa waye marka ma shaqeeyo gurigaan fadhiyaa that is why wixii ma kabi kari dadweynaha u dhex galaa gabdho muxsiniina jiraan maasha allah meel kastoo joogaan ila soo xiriiraan jecel inay baxsadaan marka waxaan jeclaa aniga orderkaan jeclahay berima sugunta teerso tartiib tartiib wixii inaan ku sameyna laakiin wixii haddii aan isku dhex darno way isku dhex yaacayaan maadaama hadda loo taagan yahay dhinaca baahida oo afuraada ah markaan dhameeyo masaajidkaas tuwaarey oo walaweyn ayaa iigu jiro feelka masaajidkaasaan soo gelinaa waa isla dhisaynaa insha allah kadibna waxaan ku xijinaa masaajidkan inuu ku yaalaan jeclahay baydhabo بربي بوسليف إنه كيا جعله مساعد كان وعن كأركي حسن عن كأرك أسان ويدين دونا إن شاء الله بوسليف أكتاد إنه كيا جعله حسن مارتي ما أنا هرو أطري أساس دوبي بيج كيسو كجرا وارك مركا كل الله بس أنت واسكو حجرا مركا صهوش وين ناقب سمع لكن هذا لهم وحي واسكو خسا dadkii xataa confuse ay noqonayaan intee ku bixinayna masaajidka ma siinayna afurmaan ku bixinayna marka wixii markay order yihiin laakiin beel waay hada soonkii marka wax yaraaba noo dhiman soonka isdhaafsiinayna wax alla wixii dad tabarucaad dhiibaayo ha isku taxluujiyaan inay dadka afuriyaan hadday noqon lahayd masaajidka hadday noqon lahayd maxay ahayd toole kaamamka hadday noqon lahayd maxay ahayd toole ilaa ani hadda kaamamkii garow dadka dhan waxay dhaheen kaamka baydhabo waxaa ku jira dad disable ah dadaan istaagi karin dadaan maxay ahayd toole hindhoole ah dadaan soco karin dadka dhan waxay jeclaadeen kaamamka baydhabo kii garowe dadkaas waxaa waaye xoogaa dad iyagana disable ku jira laakiin hal naago aad u liidatayo lugta guurguuranaysay gabaraa waxay ku afurta bishoo dhan soo siisay kheyr allah siiyo way usoo duceysay fadhigeedana loogu geeyey maasha allah baqaarkuu tago wuu soo qaatay fadhigeeda loogu geeyey taasna iyadana ilaahay mahadiisa waay naago kaloo waxaa dhiman iyagana ku jiraan hooyooyin kale oo iyagana disable ah oo laakiin ilaa iyo hadda aanan dad soo dhawaaqin dadka markay dhawaaqaan waxay leeyihin baydhabo noo geey cashada noogu dar marka aniga sadaqo oo la yidhaha baydhabo geeyna ma leexin karin marka insha allah biidnillahi kariim khayra iska noqonaysa tabarucaadda way socotaa lacagaha waa lasoo dirooya laakiin dadka joyce ay samaynayaan inta noogu rid inta dadka qaarkood waxay leeyihin kutubaan rabnaa xasan noogu dir maasha allah tabaarak hadda shams oo kale kutubaan rabaayay tiri xasan noogu dir ani saaka xasan waa u diray laakiin maadaama mar hore iyada ballanay qaaday gabdho kalaa jiraan iyagana waxay dhaheen waa baxsanaynaa laakiin ilaa ay hadeertaan warkooda ma hayay mar alla markay ila soo xiriiraan iyagana hadday soo dhiibaan sidaan saaka ugu tuuro xasan ayaan ugu tuurayaa marka asagaa laga sugaaya inuu cajal usoo duubo gabadhaas una soo duceeyo shamsa iskale jiiradaan ugu duubay gabadhaas gruubkayga igula jirtaa mar walba gabdhaha sadaqaadka u taagan waay marka walaalayaalow kii aan waxba baxsan karin sheer noo dhaha anigana waa iska kacaya afuraan sameynaa jisaakumullahu khayr jisadiina janno waa kaasaa waxaan u taaganahay waa kheyrka un waay waayo kheyrka kan sheego iyo kan facalka sameeyo iyo kan ololeeyo sideydoo kale iyo kan hagaajinaayo hawsha qabanaya sida tiim gaarsiiyoo kale sida xasanoo masaajidka dhisoo kale sida maxay tahay masaajidkan hadda daafeed oon raba inaan dhisoo kale nimanka u taagan oo rabaan inay dhisaan iyagana oo maasha allah tabarucaad oo voluntary xataa shaqaalaha waxay dhaheen voluntary aan ku dhisayna ay dhaheen wax fiican waaye just lacagtii dhagaxii lagu dejin lahaa weliba waxay rabaan iyaga dhagax saas ma rabaan hoos un shub laga sameeyo kadibna bulukeeti waayo masaajidka dhanba waxa waaye macnaha maba lagu noolaan kara dhexdiisa asna waa lasoo duubooyaa gogol male daaqadaha waa dulduleelaan roobaa kasoo galo kor uma daboolno aadaan oga nahay marka insha allah kaas markuu dhammaado kan hadeertaan masaajidkan hadda aniga aan haayo oo ah masaajidku macali xasan iisoo dhiibay oo asagana lama yeeri ah oo iyagana ay jeclaadeen in sar looga dhigo kan hadda oo isoo waceen saaki ana isoo waceen laakiin waa isla busleyda le u malaynaa masaajidkaas isagana waxay dalbadeen iyagana lama yeeri waay dheen kuleelana dilooyo qabow ma haysano laakiin masaajidka waa dhisan yahay waana yaryahay waa lama yeeri waay waa kii hadda idin tusinaya marka asagana waxaa looga dhigayaa bulukeetigaas waa kana bulukeetigaas le looga dhigaa insha allah waa kaas yariis waa mujeedido lama yeeri waaye asagana bulukeetiga le looga dhigaa waa kaas masaajidkaas yariis waay marka waxay dalbadeen in sidii kii xasan loo dhisay loogu dhiso asna kulley bulukeeti le laga dhigaa insha allah waa loo wada istaagaa waan caawinaynaa ilaahay dartiisa hawshaan waxaan u haynaa ilaahay shaqaala ilaahay u nahay annaga dad bini aadan uma shaqeyno ilaahay shaqaalihiisaa nahay annaga iyo macala wadaadada macala shiiqyada inta soo galaan voluntaryga iyagana noogu taaganoo wacdinaayo diyaaran ayo anigiis waxaa ajiraan rabaa yiri shiiqan hadda maasha allah waa kas mujada lama yeeri waa iyaga hadda iska fiican yihiin laakiin waxay dhaheen kuleelaan qabnaa marka waxay jeclaadeen in loo qaboojiyo sar looga dhigo
ayagana waa la gacan qabanaya insha allah ani maba aanan la hadlin markaan arkay bostagekoodii oon baan dhahay insha allah anaa idinla soo xiriirayaan ku iri mana aanan la xiriirin laakiin hadda life aan baka sheegoyaa maadaama kiyu lagu jiro feel lagu jiro oo uu ka horeeyo kii waxaa ka horeeyo daafeed kadibna iyagan ku xijinaa waana bacdul ramadaan waaye hadda ramadaankiyaa joogo dad dibseebala ahaa joogo waxba aanan haysanin oo afuraadii aanan awood u lahayn inay afuraan kuwaasaan u taagana inaan afur siino inaan maxay ahayd tolaheeryada saaran ka kor qaadno ilaahayna waxaan uga baryaynaa inaan ducana ugu darno oo ilaahay faraj meelaan la firayn ilaahay uga soo geliyo xalaya anoo qaylinay soo galo wallahi aan dhahay war dadkaas maa la raro dadkaas maa beerahoodii lagu celiyo waayo beerahooda haddii lagu celiyo marooyinkan loo xirxiro way ka bixi lahaayeen markaas annaga waxaa u istaagi lahayn inaan masaajido u dhisno dugsiyo u dhisno seex ku baran lahaayeen laakiin hadda waxaan la dagaalamaynaa nolol maalmeedkoodii aan la dagaalamaynaa siday iyaga wax ku quudan lahaayeen wax ku cuni lahaayeen dadkaas waxay u baahan yihiin dugsi waxay u baahan yihiin iskuul waxay u baahan yihiin iisheeg dib habeen in lagu sameeyo u baahan yihiin guryo loo dhisay u baahan yihiin guryo loo dhiso teeda kale asxaabay waxaa idinka hilmaamay waxaa jirta gabar oo walaal ah ayaa ila soo xiriirtay waxay tiri nin jooga diinsoor ayaan rabaayay tiri inaan wax u diro ninkaaseeti waa nin aanan guri haysanin oo meel dameer lagu hayo lagu dhaqaalaynaayo ayuu ku noolaa laakiin maasha allah tabaarak videogii hore ay iyada aragtay marka contactigaan la sameynay tiam gaarsiiyaa loo diray kheyr allaha siiyo agaasimaha u diray waa lala kulmay waana la soo arkay ninkii marka waxaa loo dhisay mundul maasha allah wax yar waa idin tusinayaa mundulaa loo dhisay wuu iska fiican yahay dadkii way la xiriireen jasta wuxuu dhahay hadda waxaa leen rabaa bis inaa afur iyo wixii ay iiga soo gaartiin ay afurisiin uu yiri marka tiam gaarsiiyaa soo duubeen ani weli beejkayga ma soo gelin waa soo gelinaa gabdhahaas ana ila soo xiriireen waxay dhaheen noo raadi ninkan ani waa raadiyey wiil yaraa iga qabtay waxaan dhahay dadkii hadda sanadkan waxayba keeneenba inay ku qaraabtaana ir dadkii masaakiinta waayo dadkii masaakiinta haddii wax la siin lahay dadaa hortaagana ir seex loo gaarsiinaa wiil yaraa iga qabta ani war taleefonka ayaa kuu dhiibay maxaa kuu dhiibay taleefonkan duqaaba iskale maya duqaan la joogaa anaa caawinooyo duqa saa ii malaysid maaha ani shakiyaa marka i galay waxaan u diray marka tiam gaarsiiye agaasimaha la hadlay videogan uu soo tuuray videogan waa videogii hore oo duqa uu ku jiri jiray laakiin hadda waa laga bixiyey mundulaa loo dhisay qurux badanaa loo dhisay laakiin afuru u baahan yahay asagana ninka kusoo darsanayo waaba iloobayba mundulkan kii hore waa uu ku jiray kanaa loo dhisay marka markasiib waa kaas dadaa isugu tagay kaasaa loo dhisay waa kaas gabdhihii ila soo xiriir intaa ka fiirsadaan walaalaha muslimiinta alxamdulilah odayga waad caawiseen waa kana insha allahu tacaala dadaa u istaagay muxsiniina u istaagay mundulkaas u dhisay السلام عليكم أبا فاين الحمد لله سلام الدين سلام باتجاه ولدي إندسي ولي قرن قودي قربا هري ولا لا هري مقيم هري الحمد لله عنك مسؤولاتي إندسوها مسؤولاتي مسخوشي هذا لو ديسويا الحمد لله إذا دين كلمة تقول كلمة أتن والكلمة ليش يفضل هاي إلهي شيء كلمة أتن الدين ما تقول كلمة شو يفضل هاي meel dameer lagu xanaaneeyo uu joogaa wiilkaasaa mas-uulka ah because ani wiilkaasaa iga qabtay waa ku qayliyo waxaan ku dhahay maxaa ku dhiibi lambarkaa ninaaba iska lahaa iriyo waayeel oo loogu caawinayo marka waan shakiyey tiam gaarsiiya u dira waxaan dhahay dhalinyaro waxaa jirtaa iri oo ku qaraabanaya dadka masaakiinte arrintan naga soo kala bixiyaa iri gabdhaha ay soo dalbadeen gabdhihii hadda kolley hadday fiirsadaan lifeka way ka arki doonaan waa la soo ogaaday laakiin videogii hore ayaa baraha bulshada wareegayo laakiin mundula loo dhisay qurux badan tiam gaarsiiya beejkiisu ku jira beejkaygana waa soo gelinaya hadda marka masqushii ayaa loo dhisooyaa afur iyo waxaasna waa u baahan huu yiri haddii dadku wax ku darsanayaan kaasna inaan idiin sheego waaye meeshaan dameerka lagu hayo mujeedaa wuu degan yahay hadda suuligayaa loo dhisooyaa waa kaas waa kaasa masqushaasaa loo dhisooyaa maasha allah dad muxsiniina mundulka u dhiseen waa kaasa dhismiday ku haayaan masqushiyaa la dhisooyaa asagana available waaye qofkii raba inuu kasoo qayb galo wax alla wuxuu maaragtay awood u leeyahay waa ugu daraynaa masqushii hadda loo dhisooya laakiin gurigiisa waa loo dhisay waa kaasaa fiir iskaashada madkufta dadka hadday isgacan qabsadaan hadda dad muxsiniina dhisteen wiilkaas dhalinyarada ee aniga aan ka shakiyey ayaa wuxuu yiri taleefonkiisa loogu tuuro taleefonka wiilka ahaayo
duqa taleefon ma yaqaano ila qofka qof u baahan yahay uu ku tiirsado mogtahay anigana maba ka fikirin waxaa idhahaye yaa kuu dhiibay taleefonkan duqaaba iskale duq oo masaakiin oo rafaadsan oo aabana lahayn oo hooyana lahayn oo keligayga ahay dhahay oo iskale maxaa kuu dhiib war waa u suubinooya war aniga qofka caawinaya qofka guriga u dhisaya markii dambe tiim gaarsiiyaan u diray waxaan dhahay arrintan soo kala saar asaa soo kala bixiyay wuu soo duubay gurigii waa loo dhisuu yiri already laakiin hadda musqushiyaa dadku mashquulsan yihiin musqusha waa inaa because gabadhi aniga waxaa isha ka siisay gabadhi baraha bulshada kusoo aragtay waxay tiri taleefonka waa wax dhalinyaraa qabanayso marka anaa war keenaya hadda warkiisana waa kana waa keena maasha allah odaygii wuu iska caafimaad qabaa mundulkiisuu ku jiraa musqulaa loo dhisooya available waa isagana kii musqush kusoo darsanaa iyo kii casho ugu soo darsanaa maxaa kaloo jiro maasha allah tabaarak daraad inaan sheegaa rabo waa ilow beejkaygana waa kusoo sheer garaynaya insha allah biidnillahi kariim marka asxaabee waa kaasaa waqti dambe noo tahay annaga afuraa naftirkayga layga rabaa waxaan haystaa hal saac iyo baraan haystaa aan rabaa afur inaan ku sameeyo ajar allah naga siiyo hooshaan hool aan ilaahay dartiis aan u hayno waaye sheer gareeya dhalinyarada aan wax baxsan karin meel dheer gaarsiiya sheerta masaajka waa gaarsiiyey intii dad ila soo kulmeen intii lacag isoo gaartay dadkii aan u diray kulli waa sheegay kulli meeshaan ay ka dhegaysanayaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabay